كرو يا تركي معي كالكرة شوية كرو علي وحجارو صومالي كرو يا تركي معي كالكرة شوية كرو waxaa duleedka magaalada Burco lagu soo dhaweeyay Korneyl Jaamac Maxamuud Aadan Doolaal oo muddooyinka u dambeeyay ku xidhnaa xabsiyada magaalada Hargeysa kumanaan kun oo ka tirsan shacabka gobolka Togdheer ayaa sidii ay saaka u soo dhaweyn lahaayeen duleedka magaalada Burco ee dhanka galbeed ka istaagay soo dhaweynta Korneyl Jaamac Maxamuud Aadan Doolaal ilaahay baa mahadle waxaa mahadle annagoo nolol isku soo gaadhnay Jaamac Maxamuud Aadan oo aan gacanta ku hayay markii maskaxdiisu qubanaysay بالله طلعي سليش بالك سو قادي دعاك مسكحده soo raacda dib baa lagu celinayay waxa iyagana si gaar ah uga mahadnaqaya qurba jooga reer Somaliland oo iyagu qaarad ilaa ka qaarad si hagar laana arintan uga hadlay oo ka dhiidhiyay oo ay ugu horeeyaan Mubaarak Yusuf Cilmi bidi Mubaarak Yusuf Cilmi bidi guud ahaan anigu aan kala saaraynin waxaan kala aad ugu mahadnaqayaa intii soo qaban qaabisay soo dhaweynta sidan u qiimaha badan leh ee dadka faraha badan leh aan koobi karin gudidii ay ka mid ahaayeen inta iyo in ka badan ma sheegi karo rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu ala rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam waxaanu aad iyo aad u soo dhaweynaynaa si kal iyo laabo ugu soo dhaweynaynaa gobolkii Togdheer Korneyl Mujaahid Doolaal oo ku xidhnaa xarig xaq darro ah oo annagu aanu ku sheegi karro inuu yahay xaq darro hadraawi wuxuu yidhi kumayaal la doorto darajiya xil lagu taxo uma korin darmaantee waxaan duulan u cuskaday madar iyo shirila daa inaan dood ka odhan karo dibnahayga furi karo Mujaahid Jaamac dadkana waa dadkii reer Togdheer Mujaahid Jaamac waxa ku soo dhaweynayaa dadkii mujaahidiinta annagu waxaan nahay dhashii mujaahidiinta maanta waxaan ku tartamaynaa wadan dimuqraadi ah oo nabad ah oo dadku ay cod leeyihiin ay doorteen cidna halkan xoog kuma qabsana doorasho lagu wada yimi wixii dhaliyana waxay ahaayeen ragga uu Mujaahid Jaamac ka mid yahay waanu ku faraxsanahay waana kugu soo dhaweynaynaa aad iyo aad waan uga xunahay haddaanu nahay bulshada reer Burco waxaanu aad iyo aad u hambalyaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay soo dayntiisa ka shaqaysay aad iyo aad baan u hambalyaynaa jaamac waxa ku dhacay xal xaq darraa haddaynu gobolka Togdheer waxaan u dhisaynaa taalaanagu taalaan u dhisaynaa waayo raggi dhulkan haddii aanu jaamac iyo raggi lahaa u kicin maanta quruxdaa muu yeesheen Jaamac Maxamuud Aadan Jaamac Doolaal waxaan ku leenahay ku soo dhawow gobolkii Togdheer gobolkii mujaahidiinta gobolkaagii dadkaagii aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa waxaan u mahadnaqayaa dhammaan qabanqaabayaashii soo qabanqaabiyay xafladan quruxda badan dhalinyaro iyo haweenba waxaan kaloo u mahadnaqayaa xildhibaan Mubaarak Yusuf Cilmi bidi waxaan kaloo u mahad celinayaa gudidii qabanqaabada ee soo qabanqaabisay xafladan aad iyo aad baan ugu qabanqaabinayaa waxaan kaloo u mahad celinayaa gudidii habar jecelo ayaan u mahad celinayaa waxaan kaloo u mahad celinayaa boqor Cismaan Buurmadow ayaan u mahad celinayaa waxaan kaloo u mahad celinayaa Suldaan Barrena waa u mahad celinayaa aad iyo aad baan inii salaamayaa talabaad aan odhanayaana waxa weeye waa fariin aan u diraayo xukuumadda Somaliland waxaan leeyahay waxa jirta birmageydo ayuu waddanku leeyahay xorriyadda iyo nolosha iyo sharafta aynu maanta leenahay waa kuwii u soo dagaalamay dadka cisiga iyo sharafta shalay sidaynu ahayn waynu ogeyne ilaahay ku alhaameeyey waxaan xukuumadda farayaa birmageydada ha la ilaaliyo maanta waa ismuujisay reer Togdheer waxaad soo dhaweysaan mujaahidkii weynaa Jaamac Doolaal waxaan leenahay ku soo dhawow gobolkaagii
rag iyo dumarba annagoo kuu taagnayn ilaa iyo xalay ilaa iyo shalay toole waxaannu ku leenahay gobolkaagii wuu kuu taagan yahay waanu ku soo dhoweeyey maanta si mug leh oo miisaan leh cududiinni waad muujiseen reer togdheerow cududiinni waad muujiseen waad u muujiseen mujaahidka aad baad ugu mahadsantihiin aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa dhammaantiin haddaan nahay hawlwadeennadii hawshan waday aad iyo aad halkan waxaan aad iyo aad uga salaamayaa oo aan ku xusayaa mubaarig jaamac bidhi iyo salabaan aad iyo aad bay mahadsan yihiin gabagabadii korneel jaamac maxamuud aadan doolaal ayaa madashaasi uga mahadnaqay kumanaanka kun ee shacabka ku dhaqan gobolka togdheer allahu akbar allahu akbar allahu akbar ilaahay baa mahad leh ciid mubaarak kulligiinba ciid mubaarak waxa weeye in yar idhegaysa in yar ii fura in yar hadalka u kaadiya aad iyo aad baa u mahadsantihiin boqolkiiba boqol baa mahadsantihiin reer togdheer dumar carruur dhallinyaro odayaal dumar aad iyo aad baa u mahadsantihiin soo dhowayntaa ay soo dhowayseen laba waxyaabood baan anigu jeelka kaga soo baxay mid waxa weeye hawlgalkii aad samayseen iyo cududdii aad muujiseen haddaad reer togdheer tihiin haddaad reer togdheer tihiin iyo hadday qurba joogga yihiin iyo haddii ay meel kasta qof kastoo isgarab taagay waan u mahadnaqayaa waxaa kaloo arrintayda iyada oo ma garanaysaa meel maraysa wax ka qabtay oo jeelka iigu yimi oo iga soo daayey oo aan mar iga hadhin salabaan maxamuud aadan ilaa uu yimi oo england ka yimina waxba ma qabsoomin sidaa daraaddeed isagana waan u mahadnaqayaa ilaahay baa mahadle isna waan u mahadnaqayaa qof kasta oo arrintaydaa ka shaqeeyey hadday xukuumadda ku jirto iyo hadday shacabka tahay iyo hadday reer togdheer tahay iyo hadday magaalooyinkii laga mudaharaaday tahay mid kasta waxa weeye waan u mahadnaqayaa qurba joogta boqolkiiba boqol baan u mahadnaqayaa maanta aniga hadalkaygu waa mahadnaq aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa waad wax weeye aad iyo aad baad ma garanaysaa ay uga shaqayseen hawshaa waa iskay garab taagteen haddii ilaah wadma waan daawanayey hablihii la xidhxidhayey ee dhangadda lala dhacayey ee haddii ilaah wadma jeelka lagu gurayey waan daawadayaan laakiin xisaab waa lala xisaabtami doonaa waa lala xisaabtami doonaa nin kasta oo shacabka wax u geystay waa lala xisaabtami doonaa anigu waad ii wada garanaysaa 16 xabadood baa igu yaal 4 goorna miina ila kacday maanta in la yidhaahdo xamar buu doonayaa oo munaafaqad la ii dhigo heedhadee waa wax aanan geyn anigu waa waxaanan geyn ta kale waxaan leeyahay waar haddaad reer burcad tihiin markaa isku duuban tihiin baa wax goosan kartaa markaa isku duuban tihiin ee aad tihiin mid tihiin ee aad haddii ilaaha weyne idmo aad isku mid tihiin baa wax goosan kartaan oo aad wax qabsan kartaan oo haddii ilaaha weyne idmo aad yacni ma garanaysaaye rag noqon kartaan haddii aad tafaraaraq tihiin oo aad soo eegaysaan oo aydaan ma garanaysaa aydaan walaaloobin wax allaale wax adduunyaale waxaa qabsan karaysaan ma jirto waxaan kaloo idiin sheegayaa waddanka doorashaa ka socoto oo dee baarlamaankii baa la dooranayaa waana dhibaato badan yahay waxaan doonayaa xagga nabadgelyada inaad ilaalisaan xagga nabadgelyada inaad ilaalisaan oo ku dadaashaan baan doonayaa habeen iyo maalin oo u soo jeedaan anigu siyaasad ka hadli maayo wax siyaasad la yidhaahdo kama hadlayo haddii ilaahay ciidanka ka dhigo
وحويان واختياشا dambe ee aynu hawlaheena ay dhamaadaan ayaynu ka hadli doonaa wixii barnaamijka waxaan kaloo idin leeyahay waan 18 May baa leedihiin waa 27 May baa leedihiin oo aan ciidin la lahayn haddaad tihiin reer Burco 18 May baa leedihiin oo 27 May baa leedihiin oo waxa laale waxa dunyaalay wixii Somaliland halyeeyadii ayaa tog dheer ka dhashay ina Ibrahim Cigaal تور فارح عمر شيخ بشير محمود أحمد علي هدين هذا ما قرأتي وعلى واحد ويا وحي هل يدي هراء مقعيد الهواء كذا شيء هكذا يجا كوا وهي سنة معها وهو ذكرني سان هبل باو ذكرني سان أقوى ما هو دينا وهو ذكرني سان نول بوحي كتجينا وذكرني سان هذا ما قرأتي وهو يسير درادي وعلى قومنا إلهي عسلان إلهي معسلو وهاي عسلين عاد يرود تي أنت قربها إسقطتان هذا رير تقدر تهين ورقب صلاة حمزة محمد موسى عوكة الريال تي في